السلام عليكم صاحبada qiimaha badan soo dhawaada youtube-kan waa youtube-keeda haddii ay tahay markiida ku horreysay aad soo booqateen ha ka ilaabina inaad follow tiktok aan u baxnay sorry haddii ay tahay markiida ku horreysay aad soo booqateen ha naga ilaabina subscribe isku dalbidogan aad daawanayso inaad like maxaa yeelay la garantaada waxay naga caawinaysaa inaan helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale dabcan waxaan muddo video ma soo duubay maanta ciila u soo duubay waxaan arkay youtuberda caanka Coco Bola oo ilmeynaysa ciil dartiisa weliba la ilmeynayso ayaan arkay waan ka baqsan kari waaye dabcan waxaan jeclaystay inaan la wadaago daawadaheeda anakoo Soomaaliya oo wadankeena iska leh aadan cariiri iyo maalin kasteed inaan dhulka canaadada ku dhex dareemayna waxaan aqsanayo gaasigaral hada wiligaa li anoo saana video miska soo duubin but this time ciila ahay ciil dhunta ay buuxdo waaya asaan waxa waaye anakoo Soomaaliya oo wadankeena iska leh aadan cariiri iyo maalin kasteed inaan dhulka canaadada ku dhex dareemayna and that's so sad wallahi billahi so sad. I was so happy هدايا والله موت كده إني خلدنا على وجهه ده استغفر الله. Anyways وحيد عاني شيء غفيرية وحنو الكوها وحا عمل واي. وده الأربورك كسو بحاجة check pointiga and then وقت قادم بمركي check pointiga لو جاري أسرافته صح؟ جاري أنا كوذني literally ماشي لقى بحاجة أربورك برتا literally هل لقى ودحي ما هو هل dhagaxa u dhaxay I wish inaad duubi lahaa hal dhagaxa u dhaxay and then gaari oo nisa ay ku qoran tahay oo askar nisa ay saaran yihiin oo gadaashiisa gaariyaal kale oo ajnabi ah wadaan meesha soo galaan anagoo nalka dhigdhag u siinayno dan dawar la gadaal u laabta literally ayka hal dhagax le ee soo gudbeen way laaban karaan deeb wayna arkayeen markaas oo galeen then he was like nagalaabta soo gaariyan saarko siin proof waay ma hano muraayadiis qof ku dhex jira ma la arkaayo and then wiilka maxaa la isha qalbaabka furay wuxuu dhahay ana ka baniga dhawaa oo bixi karne you guys gadaal u laabta adika because of askar waay waxay wataan maxaa la dhahaa isha gaari oo military ah oo nisa ku shaabadaysan tahay wataan darteeda أنا كحنول كده شخم كلين اللابط ضد أجنبي يا ودنا أنا صومالي ودن كيس كله أو حق وقال له أدري حتى هدي حق لها العيد معقولة على دو وقال لها لكن أنا حق كله أو ودن كيس كله أنا من أجنبي قدرت ده بعور مكيف قوي وكجيران لكن لا تشيل لي واحد مسدانه because of this is my country يعني أنا بحق له بني منكاس ده دور لك جنال ولابطة أعرف nowhere نينا ماشي كسو دكتة he was like البابكو ساو سوفيري and he saw me هنا أنا سارن هجاري and you know what he said اسكو خطرين ودلع وسارن imagine like how the fuck is that عدالة قطه mudnaantin ayada la siiyay maadaama gabar Soomaaliyeed tahay meesha mudnaan xaqiiqatan waay waxaas and imagine insulting oo intaas la eg just because nina ajnabiya wada aan jidkiiga leexano xaq uga leh أنا بحاجة أرتينا بابور كان الله نربحها نكمل الهنددو just because of like حاجة لايين ماشي مريكرا oh my god ودن كعاد عيل انت لا كدرام is very sad وإيرا الجرايان أسكرت جاك بوينت غير الجراس not the one who قاري وذا and you know كوك متكلاتو جيت كتاينو أو أسكرتو إن عملانا you know what he said إن على توتوغير بتاع يا وحكة ترى ديرالها ولو حتى محاقادة قاري هذا كلها بنيسة دحت اللو أقبله Soomaaliyeed ودن كان كجوجان إن العايل إنسلت قراي شرموطي دلي وحي لرو لقول المامو and it's normal it's very normal and if you react أنا خلدن because of جبراته أفكار خبص وحي لرو لقولها كأمس ولا حنوة at least أنا على قبها هيك عم طاف
laakiin qori wax ma ka qaadi kari because of qori haysataa waxaa rabtida anigu samayn kartaa anan waa iska aamusaa. Man, that's so sad. It's very sad. ayaan aragta arkaanin maskiin oo la garaaca like why qori anoo xaq leh sababta oo oh my god wallahi ciil waay adoo wadankaada joogtid ciil ku noolaa maanta haddii qof Soomaaliya oo gaariga seeti xataa madaxa dooy holiday la madaxa saaran adiga gadaal u laaban lahaa laakiin waxa ciilkayga qabtay waxaa soo nin askari Soomaaliyeed ah oo wadankayga joogo oo loo talagalay inuu idifaaco talimi nin ajnabi ah wadaaya jidku u banay adiga banay weer oo wadamo kale anaka ku soo noolaanay dadkooda value siinayaan instead of ajnabi. It's so sad. Wallahi it's so sad inuu qof ajnabi qiimo anig iga weyn anoo dhulkayga joogo inuu asil ahaado oo anina lii insult garay waxyaabo aan ahayn liigu sheego